shirkan ay isku yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha degta deegaanada Xamar iyo Xamardaye ayaa waxaa lagu cambaariyay socdaal uu maalin ka hor ku yimid madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare goobo ay ka mid yihiin dekadii macmalka Ceel Cadde garoonka Cisiley deegaanka Dhilmaayole oo madaxweynuhu ku tagay booqasho aan hore loo shaacin kuwaas oo ay sheegeen odayaasha dhaqanka inuu doonayo madaxweynaha Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare inuu gacanta u geliyo dad dana gaar leh madaxweyne Waare miduu ka jeesay Ceel Cadde shalay aan ku hadda Ceel Cadde taagan miduu ka jeesay waa nagu socodiiday dhulkayna oo mataan Cabdulle wixina soo gali doonana waa waraxaan ka soo jeedno kuna dagaal gali doono oo la isugu isxaafari doono waxaan jecelnahay mataqaana waddankayna inaan xur u nahay mataan Cabdullana la yiraa ma qarsanin ma magac gaabnin dhulkana Soomaalida nin walba degaan uu leeyahay degaankiisana in lagala arinsado ayuu mataqaana danta u taagan yahay oo Waare asagoo ciidankiisa wato ku soo dega garoonka Ceel Cadde iyo mataqaana Cisiley iyo Dhilmaayole iyo Ceel Macaan mana suuro gali karta raalina kamaniin haddaan nahay dadka dalka iyo dad kale oo u dhashay beesha mataan Cabdulle Xamar iyo Xamardaye mana ogolaa doono mana ogolin waana ka soo horjeednaa haddoono madaxweyne Waare wuxuu shalay sameeyay oona ka bixin raali gelin oo mataqaana beesha raali gelin aga bixin wixii ka dhacana asaga mas'uulka ah haddaba beel isjecel oo walaale ah oo hadda isku dhax safarto jidka inay ku kala go'do hadduu ka shaqeeyayna hadda raali gelin ka bixiyo amba saxiix ha qaado meesha nabadda ahayd oo halka tub ahayd ee wada joognay inuu colaadka abuuro xaq uma lihin halka tubo birigana hadda waxaan joognaa degmada Ceel Cadde tubta Ceel Cadde haddana waa dhex taagannahay madaxweynehayna raali geli ha ka bixiyo waxaana jiro shalay ciidan oo wato iyo maaragtaa madaxweynaha Hirshabelle loo wato ayaa si maaragtaa sharci darraa ee annaga aan nagala tashan ayay ku timid maaragtaa deegaankayna laguna maquuni rabo raallina kama niha annaga waxaan rabnaa deegaanka waa deegaanka kaliya ee nabadda ah ee ka tirsan Hirshabelle waxaan rabnaa inaan macnaha deegaankayna ciidan iyo macnaha hobda baabaada macnaha idoo wata la soo dhex galay dagaalanta tashan in wax laga qabtana la rabo raalli kama nihin waana diidanahay dawladaynu waa taageersannahay waa ayidsannahay laakiinse waa nugu gardarro unuku inay nala soo galo unukoona maaragtaa warbixin nala siinin oo deegaankayna lagu wareejiyo goofaha aan leenahay iyo dhulka aan leenahay lagu wareejiyo dad kaleento waana diidanahay mana yeeli doono madaxweynaha Hirshabelle waa madaxweynehayna si gardarro ah oo xaq darre ah ayuu maaragtaa dadkaas noogu keenay raali gelin ha ka bixiyo haddousan ka bixinin wixii maaragtaa ka soo gudboonaado arrintaas ka soo baxa su'aal mas'uuliyaddeeda qaadayo waxaa ku suganaa deegaanka Ceel Cadde tan aawadeed ayaan u imid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Waare haddousan shalay arrinta uu ka suubiyey Ceel Macaan Ceel Cadde Dhilmaayole dhulkaas hadduu raali gelin ka bixin dhibaatada timaada asaga ka jawaabi doono haddaan nahay beesha mataan Cabdulle arrintaas isagama raaracno Cabdullaahi Maxamed Xasan telefishinka caalamiga Somali News degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe